qoran haddii lagu dhaho uma baahnid inaad sugtid ilaa retirementigaaga ama ilaa ka duqoodid si aad uga xorowdid shaqada maalinlaha ah. Sida milyaneeradana inaad u noolaatid uma baahnid inaad milyaneer noqotid. Qoraaga la yiraahdo Timothy Ferris, buuggiisa The 4-Hour Workweek, buug loogu magac daray 4 sac shaqo ee asbuuca, wuxuu kaga hadlay sidaad uga xoroobi kartid shaqada 9 to 5 ama shaqada maalinlaha ah adigoo markaasna shaqaynaya waqti yar si xorriyad iyo waqti badan gacantaada u soo galo. Habkiisan wuxuu ku soo koobay erey ah deal. Marka ereyga ayaan xaraf u kala qaadaynaa. xarafka koowaad definition oo D ka bilowdo wuxuu leeyahay qeex horta marka hore nolosha waxaad ka rabtid. Dadka badana milyaneer inay noqdaan way rabaan, laakiin milyanka waxaad ogaanaysaa markaa qeexdid waxaad rabtid inay tahayba milyanka waxay ku siinayso waqtiga badan iyo xuriyadda aad ka helayso milyanka markaa heshid. Marka wuxuu ku leeyahay soo ogow nolosha dhabta ah ee aad rabtid inaad ku noolaatid. Nolosha sida hirka hadday ku wado oo meeshay ku geysa aad iska tagtid, waxaa ka wanaagsan uu ku leeyahay inaad define garayso oo aad ogaato nolosha habka aad rabtid inaad u noolaatid. xarafka kale waa E, elimination, inaad ka saarto. waqti inaad save garaysid uma baahnid, kaliya waxaa u baahan tahay howlo badan oona muhiim ahayn inaad ka bixiso noloshaada si waqti uu kugu soo haro. wuxuu leeyahay isticmaal habka ah 80-20 principle ah. 80% resultiga waxay ka imaataa natiijadaas, 20% effortiga aad bixisid, juhdiga aad bixisay ee natiijada ka imaada inta badan. Tusaale ahaan dukaan ayaad iibisaa. dukaanka marka inta badan waxaa la gataa alaab oo aanan badnayn la gataa. marka faa'iidada ugu badan waxay ka imaadaa alaabtaas la gato. alaabta maadaama alaabta dukaankadan ay taalo ay ka tahay 20% ayna ku soo gelinayso faa'iidadii 80% waxaa faa'iididba meesha ay ka imaanayso, waxaa qasab ah inaad focuska saartid oo horumarisid alaabta noocaas ah. noloshaada marka waxaa ku jira waxyaabo badan oo natiijo fiican aan keenaynin, wax yaroo natiijo fiican kuu keenaya inaad ku dadaashid oo focuska saartid, iyo wax walboo distraction ah oo kaa mashquulinayo howlaha sida emailkaaga inaad fiirisid, mobilka social media oo kale maanta oo dhan scrolling inaad ku jirtid. elimination marka inaad ka saartid wax walboona u baahnayn noloshaada. midda kale wuxuu ku leeyahay automation oo A ah, in wixii automatic aad iska saartid meelihii dakhligii kaa soo galayay, sida inaad business samaysatid ama qof uu kuu shaqeeyo outsourcing, in dad kale ay isticmaashid inay kuu shaqeeyaan oo wax kuu qabtaan adigoo meeshiiba ka maqan. xarafka ugu dambeeya oo L ah wuxuu ku leeyahay liberation, isxoreyn, inaad ka xoroodid inaad shaqo aadid xafiiskii inaad lugta ku tagtid. wuxuuna kugula talinaya inaad ka dhigatid remote, in maaragtay waddan kale aad kasoo shaqayn kartid laptopka adoo wato, meelo kale aad kasoo shaqayn kartid oo aanan loo baahnaynba si in person ama lugtaada inaad ku tagtid xafiiskii ama goobtii shaqada. sidaas waxay xorriyad kuu siinaysaa uu leeyahay wadamo badan inaad aadid oo aanan ku qasbanayn inaad hal meel aad joogtid si aad u shaqaysid. aad cajiibku ah oo buugga uu ku soo qaadanayo wuxuu leeyahay mini retirement samee. retirementiga sida caadiga dadka waxay shaqeeyaan wadamada reer galbeedka ilaa 55 ay ka gaaraan ama 60 ay ka gaaraan ayay si toos ah u shaqeeyaan, kadib ayay maaragtay shaqadii ka haraan markaas ayagoo ku faraxsan in waqti badan uu soo hari doono ee nolosha ku raaxaysan doonaan. laakiin wuxuu leeyahay waqtigaas markii la gaaro caafimaadkaaga sidii hore maaha, wax badan ma samayn kartid, cuntooyin badan oo ma cuni kartid. marka maxaa faa'iido ay leedahay marka retirement ilaa markaas qaadatid? wuxuu ku leeyahay marka throughout your career intaa shaqaynaysay oo shaqada awadid waxaa samaysaa mini retirement inaad samaysid dhowr 2-3 sano, iyo haddii aad shaqaysid oo kale in 6 bilood oo kale fasax dheer iska geshid oo haddana dhowr mar ah intaa ku jirtid oo dhowr mar oo sidaas oo kale ah waxay nashaad iyo kuu siinaysaa iyo nolosha fursadooyin badan iyo wax badan inaad aragtid ayay fursad kuu siinaysaa. qoraaga wuxuu aad ugu dhiirigelinayaa dadka inay ka xoroobaan shaqada maalinlaha ah ayagoo marka business iyo waxyaabaha samaysanaya sida milyaneeradan u noolaanaya. waa buug cajiib ah, waxaana la yiraahdaa The 4-Hour Workweek. aad iyo aad u mahadsantahay daawashadaada. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. qalbigu keligii wuu kurbooda ka shaydiyo taadu wayskaaban iskaashadii oo ma kala marman waqtiga keli faadad keligii.